بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على حياة الشرف له. وهو حيسة قولية يولي حيسة قولية. وعدو يساعد دونا نكي حسن الشيخ محمود ومنافق ويا مدحويني هو يقلق الصومالي يا هاتري. أيها هاي الغصو صاري أسوأ كما هاتف كسيه. قلت الله لو تشين ميو دولة دوار دقاقبي أبقال وار دقاقي وادورو وادودي waxaa ka dambeysay inuu xalayso warqad inta leeg soo qoray asagoo kala hadaf ku sida kala ninkii sida Abdullahi Dariya oo shaqay heesti ahayd darabi lanayda shalay diri islanayda maadana ku dabado damba ku rusheegte dayla ruuxda daba damin ba u yaale eesas oo siciid hawshadan soo dhawaada waa farqeen doonaa odaga xasan qayrada ka soo yeedhay cabashada ka soo yeedhay madaxweynihii hore ee Soomaaliya munaafiq xasan sheekh maxamuud iyo waxa uu maalinta dalacsan yahay iyo sawirka uu raadinayo inuu Saad Abdullahi Dariya la galo waxa kalifay odaga yaa soo dharbaxyeeyay xagee dharbaxooyin kaga yimaadeen xagee odaga waran kaga jira waran baa ku jira xagee kaga jira waxa soo dhawaayay qaada dhigi doona waa idin sharaxi doona soo dhawaada horta markaa tahay wiil reer Puntland ama gabar reer Puntland markaa tahay markaa tukatidba alxamdulillah soo mar haddii Saad Abdullahi Dariya madaxweyne ku yahay ayuubna halkan ku fadhiyo waxaan anigu been halkan kaba sheego been iyo faan iyo khiyaali faanka ficil baa idhe maalintii xasan lahaa loo joojin mayo baan idin maxaan idin waxaan idin tan Puntland bay ahaanaysaa midda Puntland bay ahaanaysaa xasanna maalmo ciriiriya kadib oo darbiga madaxa ku soo dhufto wuu soo laabanayaa asagoo leh waan u hogaansamayaa Puntland above the law waan u hogaansamayaa asagoo leh buu soo laabanayaa haddana maxaa dhacay waa ka isbihinaya beeshii caalamka dhaqaalihii xidhay waxaa la yidhi waa khasab inaad Puntland noo keentid oo saxiixeeda noo keentid oo madaxweynaha noo keentid oo wax la yiraahdo wadar ogol aad keentid mashaariicda Puntlandna waa khasab inay qaadato ayaantii hore Puntland doorashada ku jidhay ayuu mashaariic badan beesha caalamka wuxuu ka dhaadhiciyay Puntland doorashay ku jidhayo dani baa lacagta mashaariicda u isticmaalaya doorashada u isticmaalaya oo jeebkiisu gashanaya yaan mashaariic loo gudbin way ka yeereen doorashada hadda ku soo guuleysanay dinana soo laabay hadda miiska wada hadalka waa isqarajci loo joojin mayo dastuur baan furaya dastuurka waa tii lagu albaabay oo la yiri dastuurka iyo asaga ma aqoonsayma dastuurka ka dhacay asagana madaxweyne aqoonsay beesha caalamku meel kasta warqad ay ka galiyeen waxa la sheekh intaan ka badan kuma dul qaadan karno Puntland waa Soomaaliya saddex meelood laba meelood kamid ah Soomaaliya Puntland baa ama saanaho Soomaaliya marka la kala baro Puntland baa haafa kama ayada baa loo baahan yahay Puntland daadan hayn khayr Allah ku siiyo waxa ku siimin marka cadaanku muxuu sidaa u leeyahay ma Puntland buu jecel maya kelmadda ay qora way dhahay way sheegay hawarta uu xukumayo koonfurta uu xukuma xasan ama madaxweynaha hore ka ahaa adeer moos iyo camba ka baxa gaalka lacagtan deeqda bixinayana deeq ma aha lacagtan deynta bixinayana ku xisaabtan ma moos iyo camba iyo saytuun iyo babaay iyo isbaandhays ma rabee shidaal iyo oil iyo saliid buu rabaa wadanka shidaalka iyo oilka iyo saliidda lacagtan lagu bixinayo deynta ay ku jiraan Puntland baa boqolkiiba 90 inta ceel gaalka iyo tuboosaso ilaa 15 ceel oo markii la qiyaasay 3 trilyan oo shidaal ku jira oo barmiil 3 trilyan 360 trilyan doctor gaaladu cadaanka ah deynta waxay ku bixinayaan waa shidaalkaas lacagta laga heli doono way markuu soo baxo ee shidaalka ku bixin mayaan moos baqbaqa iyo camba iyo saytuun iyo isbaandhays iyo yaanyo ku bixin mayaan iyo yaanyada ka baxda jawaan ku bixin mayaan sababtoo ah kulligoodba halkaan cambe bila ura waa yaala cambe iyo moos iyo shidaal waagaas meel kasta ka baxaan buuraha dushooda ka beeraan buuraha dhagaxa
annaga borodhay xamaleen dushooday cambaha ka beeraan nimankan caddaanka ay lacagta bixiya marka cambe iyo moos loo baahana shidaal bay u baahan yihiin shidaal bay lacagta waxay rabaan hadhow deynta ku qaataan shidaal bay rabaan shidaalkiina xagee yaalla puntland buu yaalla puntland hadhow maxay dhihi kartaa annagu deyntan mar la qaatanay maan ogeyn soomaaliyana kama mid nihin xasan iyo reer koonfur u raadsada gaalku marka cawaan maaha cambe iyo moosna wixiisa ku bixin maga shidaalna ku bixinaya gaalkii baa marka afka soo jiriyey xasan oo yidhi xasan annagu cambe iyo moos iyo qare wax kugu siin mayne meesha khayraadka iyo dahabka iyo shidaalku yaal dahab iyo shidaal meesha uu yaal meesha saxiixna ok waa kala xalay asagoo afka kaga kusida puntland xataa ma oran dowlad goboleedka puntland sida sharciga muuse oran leefleefkiyaa wuxuu la gaaray inuu yidhaahdo dowladda puntland waxaan ugu baaqayaa gobol baan ugu baaqayaa inaanu isgarabsanaa rabaa inaanu xiriirka iyo hagaajinaa rabaa waa dowladda puntland xasan wuxuu yaqiinsaday puntland ababdalow qof kastoo reer puntland hooyo kastoo reer puntland iyo aaba kastoo reer puntland wiil iyo gabar reer puntland marnabaa ka shakiin inta dani halkaa kuu fadhiyo xasan buste inuu ku gato ha ka fakay inta ayuub halkan kuu fadhiyana in lagaa dhaadhiciyo xasan baa qurux badan ha ka fakarinta ha ka fakay puntland laysku halayn karo waa haysataan puntland waxaad haysataan meeshay ayadu dhigto halkan qooraha saaraa waa ay qabowdahay meeshay ayadu rugtas cagta saa u saadho aan laga daba saari karin puntland waxaad haysataan dhihi kadha ninkii iga dheer haga bul wuxuu yidhi saahid qabaan wuxuu yidhi gabaygii saahid qabaan ee adiyaala ku roya wuxuu yidhi masalaha nimaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga igama armi kara uma muraad yeesho muska xasan busta galay arlada kama miciin moodo muska xasan busta galay arlada kama miciin moodo dad isku filan xeeb leh bad leh sharci leh dowladnimo leh aqoontu guryahooda taal shidaalku guryahooda yaal macdanta guryahooda yaal babayga iyo haddii aan lagu roon yahay mooska ha lagu qaato dayn